السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دبادة 10 كان امتحانها سكتشابك 10 كان و10 كان سدحات maanta waxaan ku baran doonaa hadii uu ilaahay yiraahdo qayb kamid ah 3D-ga sida sketchup-ka loogu isticmaalo laakiin taas waxa ku horeysa markuu horeys inaan sameeyno plan cusub oo aan ugu talagalnay inaan ku ambaqaadno sketchup-keena sidaas daraadeed marka waxa loo baahan yahay inaad hadii aad casharada hore nala soconin inaad kan si fiican nala socoto sababtoo ah kan hadii aad ka harto uma maleynaa inaad waxyaabaha dambe oo sketchup-ka aan ka sii sameyn doono nala socon doontid waxaan rajeynayaa inaad nala socon doonto insha Allah sida hore u naqaanaba marka ugu horeysa sketchup marka soo kiciso sidaan u noqonayay waxaan iska baabi'inaynaa sawirkan waxaan tegaynaa halkaas oo ku qoran tahay top-ka si aan u diyaarsan markeena hore plan-keena cusub insha Allah rectangle-kan marka waxaan u soo qaadanaynaa qaab symbol ah marka saas dhahdo ilaa hadda shaashadeena inta siran ka arkoona kuma wada sawir karno marka sawirkeeni saas darteed rectangle ugu sameeyno waxaan leenahay zoom extent inoo soo weynay marka waxaan iska tirtirinaa marka leemankan rectangle-kan uma baahnin plan-keena usbaan diyaarsanayna haduu ilaahay yiraahdo waxaan soo qaadanaynaa qalinkan soo qaadanaynaa maanta waxaan ka bilaabaynaa leemanaan sameeynaa rectangle ma sameyn doono waxaan kaloo baran doonaa wax loo yiraahdo offset insha Allah waa isla arki doonaa haduu ilaahay yiraahdo leenkeena bartaasaan ku dhufanaynaa gurigeena sidan wuxuu u noqon doonaa haduu ilaahay yiraahdo 13 mitir iyo bar saan waxaan u dhaqaaqaynaa 4 mitir iyo 80 saan waxaan u dhaqaaqaynaa haduu ilaahay yiraahdo 2 mitir inta waxaan u dhaqaaqaynaa 7 mitir iyo 80 kor waxaan u dhaqaaqaynaa 11 mitir iyo bar oo noqon doona gurigeena bacdi waa u jeedaa si direct leh isku soo xirnay okay hadda waxa diyaarinay waxay tahay formkii iyo qaabka gurigeena noqon lahay maanta marka waxaan baranaynaa qaab fudud oo aan u sameyn kartid interior-ka sidoo kale waxaan baran doonaa wax la yiraahdo offset offset horta waa tool-kaas aad u jeedid dadka inta badan outcut-ka dadka soo isticmaalay way yaqaanaan offset waxa uu yahay iyo wuxuu wax lagu sameeyo sketchup-kana waa kaas qaabkaas calaamadaas uu leeyahay oo ku soo dhufanaynaa plan-keen marka dul imaano sidaas uu noqonaa then waxaan sameynaynaa marka dhumucdii ama thickness-ka uu lahaa darbigeena banaanka waxa waaye waa 40 cm sida hadda inoo muuqato waxay noo sameysan darbigeena banaanka ahaa sida maalin dhibad marka aan sameynayna floor plan-ka hore waxaan sameynay inaan marba line soo qaadno soo sameyno laakiin offset-ka maanta wuxuu noo fududeeyay inaan si yar oo fudud u sameysano haddana waxaan sameynaynaa inaan jarjarno marka qolalkeena haduu ilaahay yiraahdo intaan ka bilaabno qolkan san waxaan ka dhigaynaa 4 mitir inta waxaan ku xijinaynaa marka thickness-ki oo ah 20 cm maadaama partition wall uu yahay meesha marka inta waxaan galashanaynaa haduu ilaahay yiraahdo master room san wuxuu u noqon doonaa 4 mitir inta waxay noo gelisaa thickness-kiisi oo ah 0.2 master bedroom marka waxaan ugu xigsiin doonaa haduu ilaahay yiraahdo another bedroom oo cabirkiisa noqonaya isagana 3.5 mitir isagana thickness-kiisa si oo ah 20 cm marka waxay noogu xigsiin doontaa haduu ilaahay yiraahdo musqul yar oo noqonaysa iyada 1 mitir iyo bar 1 mitir iyo bar 1.5 kabacdi musqusha thickness-keeda si oo iyadana ah 20 cm okay intan waxaan noo gelin doonaa haduu ilaahay yiraahdo qol kale okay marka waxaan sameynaynaa leenkan noo soo qaad marka loo xirxir leemanka aan sameyn dham inoo xirxir si aan u sameysano darbiyada ee qolalkeena yeelan doonaan haduu ilaahay yiraahdo okay kaas waa ka dhamaanay kan kale imaano mid kale waa sameyn kartaa oo rectangle noo ku xiri kartaa adeeg kugu xirantaa labadaas hab waa isticmaali kartaa okay inta waxaan ku sameysanaynaa another darbi kale leen noo soo qabo bartaas ku xir kabacdina bartaas ku xir haddana leen kale soo qabso inta ku xir
بعدين انت ku xir okay sida hadana muuqato marka barta waxay noogu jirtay suuli marka suuliga dhererkeeda sidaan way ka yar tahay qolalka insaan waxay noqonaysaa haduu ilaa yiraahdo 1 mitir iyo bar kale saan waa inta dhumucdeedii oo 20 senti darbigeeda ah ka bacdina soo qabo rectangle sidoo muuqato dhinac qaybta way noo dhameystiran tahay waxa iska tirtireena marka guidelines ku edit leh ka bacdi delete guidelines leh sida hadda noo muuqato qolalka qaybta way noo diyaarsan yihiin oo furfuranayna marka si hadhow markaan 3D ga u qaadayno inoo fududaato insha Allah isla socod wanaagsan okay qaybtan hadda way noo dhameystiran tahay safkan oo qolalkii aan ugu talagalnay waan gashanay okay inta waxaan sameysanaynaa marka haduu ilaa yiraahdo musqul iyo kushiin iyo storekeedii qaybtan aan gashanaynaa okay noo soo qaad marka tapekeeni musqushan waxay noqon doontaa 1.8 waa waaye master bathroom keedii 20 senti dhumucdeedii okay inta waxaa nooga dhigtaa 2 mitir 20 senti dhumucdiisana geli okay sida marka waxaan ka dhiganaynaa haduu ilaa yiraahdo 2 mitir iyo bar 2.5 thickness kiisana wuxuu noqon doonaa haduu ilaa yiraahdo 20 senti okay marka leenkeena noo soo qabo inoo xirxir okay لانكاس waan xireen ka bacdi kana xiranayna kana noo dhameystir marka kushiinkii waa qaybtaasna qaybtan way noo sameysan tahay iyadana delete guidelines iska dhax marka guidelines iska tirtir bacdi meelaha noo fur saano kala di qalad ka dhacdo dib ma lahan control z leedahay bis adigoonan iswaalin tartiibkaaga SketchUp waa software aad u fudud barashadiisa isticmaalkiisana aad iyo aad u fiican tahay marka isticmaalaysid okay qaybta sadoo inoo dhamaatay marka waxaan rabnaa inaan qaybta aan ka diyaarsano living and dining room inaan qaybtan ka diyaarsano qolkii fadhiga iyo cuntada okay qolka marka qolku uu ka weyn yahay haduu ilaa yiraahdo wuxuu noqon doonaa 6 mitir okay thickness kiisana wuxuu noqon doonaa 20 senti okay qolkeena marka balaciisa isagana wuxuu noqon doonaa haduu ilaa yiraahdo 5 mitir iyo bar thickness kiisana wuxuu noqon doonaa 20 senti oo 0.2 ah okay qalankeena noo soo qabo leenkeeni okay edit ده guidelines naga baabi marka eraser ka soo qabso meelahan iska fur marka sida hadii noo muuqato balankeeni almost intiisa badan wuu diyaarsan yahay oo uu dhameystiran yahay kaliya hadda waxay noo dhameeyay inaan sameeyno albaabadii bas marka albaabada kulay horto 10 ka hor aan ku sameeynay laakiin qaab muraajaca maanta waxaan ku sameynaynaa haduu ilaa yiraahdo hal albaabkaas oo nooga baahannahay hadhow xitaa markaan sameynayno 3D ga xitaa qaabka albaabka 3D loogu sameeyo insha Allah isla socod wanaagsan noo soo qabo tapekeeni 20 senti inta ka soo bax ama 40 senti ka soo durug darbigan okay waxaan sameynaynaa marka darbiga waxaan ka soo bixinaa 20 senti dib ma soo kale ku dhigo waxa soo doorta falaarta ka bacdin dib u soo qabsala bas waxa noo soo darbiga ka soo saartaa 20 senti leh ka bacdi waxa waaye 9.9 okay saan waa hadda albaabkiina qaabkiisu uu dhameystiran yahay waa ina doorweeyada sameysano
okay kabacdi eraser soo qabso iska tirtir waxaan dhan wadaasna ma fur sidaad inoo muuqato albaabkeen doorwaygiis waa diyaarsan yahay waxaan u baahanay inaan sameeyno door frame meequu ahaan jira marka rectangle horta soo qabsan door frame markaa sameynayso waa inaad rectangle soo qabsataa wuxuu noqonaa door frame keena 0.05 0.2 sorry 0.2 0.05 waa kaasa dhinacan kalena sidoo kale oo sameysane 0.2 0.05 sidaad inoo muuqato door fanaamyada waa inoo sameysan yihiin waxaa inoo dhiman kii doorkii framekii kale uu lahaa oo ah isagana 0.8 0.05 oo ah thicknesskiisa okay had kali waxaa inoo dhiman inaan sameyno aagii uu lahaa aaga marka waxaa sameynaynaa isha soo furo aag 2 point soo dooro markaa soo doorato kabacdi halkan ku dhufo soo soco qaybtan kale ku dhufo saas markaan u jiido 0.2 geli sidaad inoo muuqato waa inoo sameysan yahay already albaabkeeni waxaan rajeynayaa inaad adiga albaabada qeybaha kala dhameystiran doontid si macnaha aan waqtigeena ugu yareeyo aan uga faa'iideysano waqtigeena waxaan u baahanahay inaan soo fududeyno meelaha qaar maadaama aan casharadii hore kusoo qaadanay maanta marka waxaan u baahanahay inaan sameyno 3D giisa qaabkuu noqon lahaa hadduu ilaa yiraahdo markaad 3D sameynaysid marka ugu horeyso waxaad tegaysaa halkaas ay ku qoran tahay ISO means wax waaye isometric ama dadka drawing soo qaato way fahmi karaan waxa macnaheedu tahay wax waaye shaygan qaab saddex dhinac ah iga tusi camal soo marka kan aad doorano kabacdi waxaad tegaysaa bush bulkaas soo qabsanaynaa bush bul marka soo qabsano meel kamid ah marka leemankeena soo dul istaagay halkaas kale istaagay marka calaamad ku soo muujiyo left kaliya leedahay kor u jiiday kor marka u jiido marka waxa gelinaynaa cabirka uu gurigan yeelan doono dhererkiisa oo ah 3 mitir iyo 20 waxa jiri doonto hadduu ilaa yiraahdo 45 cm oo foundation hadhow geli doonto waa marka insha Allah isla socon doona sidaad inoo muuqato waa kaasa oo hadda waa gurigeeni 3D giisi already waaba sameynay waxaan oo dhiman waxay tahay in albaabadiisi aan furfurano daaqadii aan u sameyno kabacdi roofkii wixii aan sii saarno sii qurxino insha Allah marka waxaan sameynaynaa albaabkana marka qaabka 3D giis albaab 2D qaabka 3D looga dhiga marka albaabkana fiirin doona hadduu ilaa yiraahdo marka ugu horeyso bush bulkaaga soo qabso kan soo qaad waxa soo kicisaa albaabku wuxuu noqonayaa 2 mitir iyo 10 kanna sidoo kale kiligde waxa soo kicisaa 2 mitir iyo 10 asagana okay kan hadhow saan isku soo xiro marka xagaas isku xiro eraser soo qabso meelaha iska tirtir marka ma baahnid okay rotate marka calaamadaas soo jeed waa rotate orbit waaye saas kale kugu wareejinay okay sida hadda inoo muuqato door framekeen marka way inoo sameeyeen frameyada hadda oo labadan dhinac oo darbigu inoo albaabku inoo sameysmay waxaan oo dhiman in albaabka qaybta furmayso xirmays marka inaan sameeyno ayadana waa tan ayadana qaybtaas waaye click si kabacdi waxaad sameysaa inaad kor u qaado asagana 2 mitir iyo 10 okay hadda albaabkeen waa inoo sameeyeen sida noo muuqato albaab furan oo kale noqday waa kaasa waxa u baahanaa marka inaan color ku shubno colorka marka halkaas aad tagaynaa halkaas marka aad tagto materialkaas qaybta material ku qoran tahay fur waxaad tagtaa qayb ay ku qoran tahay wood raadi marka wood waa kaasa waa kuwaas marka albaabada oo alwaax ah hadba marka aad colorka jeceshahay iyo qaabka jeceshahay aad ka dhigan kartid okay hada waa kaasa waa albaabkeen wuxuu noqday albaab furan oo sameysan oo diyaarsan waa kaasa door frame marka muhiimada uu lahaa door frame-ka waa kaasa
marka hore door frameka aan diyaarin jirnay muhiimada uu leeyahay marka waa kaasa framekaas u yeelaa albaabkaaga waa sida hadda albaabada caalamiga oo dibadaha laga keeno kale waa aragteen waxay leeyihiin albaabada alwaaxda inta badan xitaa leh sidaan maahan albaabada birta anaga aan Soomaali inta badan ku isticmaalno laakiin hadda wadanka waxaad moodaa inuu soo hormarayo inta badan albaabadan la wada isticmaalayo alwaaxa soo hadduu Ilaahay yiraahdo casharka xiga waxaan ku sameyn doonaa daaqadaha iyo qayb kamid ah albaabadan dhameystirayna hadduu albaabadan dhameystiri doonaa insha Allah cashar ku xiga waxaan ku sameyn doonaa albaabada daaqadahaas wasla socon doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo haddii ay tahay marka ay kugu wareyso channelkan soo booqato please subscribe like share wixii comment free aad u baahan tahay ama tala ah waxaad nagu soo qori kartaa comment qaybta hoose commentiga aad u mahadsan tahay wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi